Aisha waxa uu ku soo gudbinayaa kelmad ku saabsan bini aadam oo dunida kor jooga 24 saacadood u haysta cidna looga badin maayo hadday sanawaadka nolosha tahayna in go'an baad haysataa mid konton nool iyo mid 60 noolba waqti go'an baad leedahay waxay yidhahdaan waa mawlid aan takhsiinka aqbalin ma kaydsamo oo hantida aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yidhahdaan laakiin waqtigu kaba mid aha waxaa kaydka gala 24 saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaaba aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la daynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo inkayna ugu hantida badan la saacad ma heli kara dheeraada 24 saacadood buu haystaa geeridana saacad dib looma dhigi karo waqtigiisu ku dhamaanaya saadaradeed waxay yidhahdaan waqtigu waa mawlid muxadad ah waan gelin kayd ma galo lama gadan karo bedel ma galo waad ku qasbanta inaad sarfida bay leedahay qiimihiisuna wuxuu ku kordhaa bay leeyihiin sida looga faa'iidaysto waqtiga qiimihiisu wuxuu ku kordhaa istighlaalu sidaad uga faa'iidaysato saacad qiimo leh iyo saacad aan qiimo lahayn labadaba waad soo maraysaa haddii guud ahaan la eegana bay dhahdaan waa muddo majhuula inta aad dunida joogayso saa daraaddeed waxay dhahaan qofka bini aadamka ah hantida dhabta ee uu haystaa waa inta uu jirayo hantida dhabta ee aad leedahay waa inta uu jiro waa ra'sulmaali alxaqiiqiga qofka bini aadamka haysto إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا وحى لغا شيغا إنه أوران جيري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ورير نبي آدم ومالمون باطهي بوليه مالين مركي كاتك تبا قيبا ديغا كميدا باتكتي إذن عمر يا لشيغي يا وحى إنه هيسنو وسكن ديسكاس سكن ديسكو أديغا قيمة كوما له لكن nolosha marka la xisaabanayo marbu jajabku qiimo leeyahay qoladan orda maxay kala dheereeyaan koon xufta carara 9 wa seconds wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan ثانية ama second wax ka yar ayaa wan lagu galaamo to lagu galaamo jaayisad lagu hela ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa hadaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga waxaana cajiiba waqtigan aynu hadda joogno galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday waa maxay marbaad cimrigii tuurtay soo maaha xagga xabaasha markaad u sii dhawaataba miyaad farxi wax qabadkuma farxaysid waxaad intaajadadaasoo kale ma jiro waa mujarad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynkaa lehi ee sidaa qiimaha u leh ka faa'iidaysigiisu wuxuu ku xidhan yahay bay yidhaahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto haddii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ah waxa uu fahmayaa garanaya sida uga faa'iidaysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaaliyo waxaan qabtaa garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwaraa waa maxay rabbi irjicuun ilaahu icil waa kan aad imika garan laaday si aad tidhaahdo
ayaa calaacalku noqon doona ilaahu waqti yaroo dambe halaysiiyo hadduu markaa qofkuba yidhahdaan hadafku ka lumo qiimaha waqtigu uu ka lumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda waydinku jiraa qof usbuuca soo socda wuxuu qaban kara saacad walba u qoranta usbuuca soo socda waxa uu rabo inuu qabtaa u qorantay إدارة الوقت كي شيغير تايم مانجمنت كي شيغير وينتها وين الهدف يالته تو دو ليست قائمة الأعمال الطبان دونتا أدلاده هاي جدولة كو قبان دونتا أدلاده هاي قدم كودة صدحات وترتيب الأولويات بريورتي سيكو وكرا مهم سيء محا مسطا هنا قبطه محا سه 50-50 محا وقتي هدادو هشاكو حرق maxaa hadduu kugu dheeraada ka kala riixi kartaayo kan uu qaadan karaa idan waxay dhahdaan priorities kuna waa inay calaamadsan yihiin colors bay ku isticmaalaan say u kala horeeyaan nolosha dhammaanteedba jadwaladay u sameeyeen waa intaa waxa dheer bay dhahdaan tartiib alxayaa noloshaada halkaad la maraysaa waa inay kuu ballaangaraysantay bay dhahdaan the coming 5 years, the coming 10 years maxaad rabtaa inaad noqoto waxay leeyihin noloshaadu meesha aad rabto inaad qabato waa inay planetka ku jirtaa waqtiga soo socda maxaan qaban doonaa idan qof baa caalim noqday iyo khabiir buu noqday iyo kan buu noqday waxa weeyaan waqtigu ka faa'iideeyay classmatekiisi muxuu noqon waayay waqtigaanu ka faa'iideeyay qof kasta oo waqtigiisu uu qiimo ugu fadhiyaa nolosha waxbuu ka dhalinayaa qofkii aan waqtigiisu qiimo ugu fadhinna dee saynu u soo jirray buu u soo jirayaa mid aragga ku eegna oo dali karaysa insha allahu tacaala haddii waqtigu kugu sugo laakiin dunida culays baad ku tahay ziyaada qofku buu dunida ku yahay haddaan waxba soo kordhinaynin waa ziyaada cala alxayaa inaad sidii ilaahay u abuuray ugu dul taagnaataa iyadoo caqli alla ku siiya awood iyo tamar waxba kaa soo bixi waayaan waa wax liita waxa mawduuca laydinku dooray uma filayaa inaad tihiin dadkan intellectualkii waddanka u soo socdiya ummadda ee la rabay inay wax bedelaan waxaad joogtaan hadda waqtigii jucbada la dhaansanayay waqtiga ahaantiina dhaansan lahaydeen waqtiga ay idin midho dhala ahayd waa idin dambeeya hadda haddaad bakeeri noola timaadana in bakeeriyumaad laga heli haddaad adoo booyad sida la timaadana waxbaad tari doontaa waa saad jucbadaada u soo dhaansato taasina waxay ku xidhan tahay waqtigaaga si aad uga faa'iidayso sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin